السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي wanaagsan saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada Yasmin channel. Haddii aad hore noola joogtaan muuqaalka like nagu caawi in si share garay asxaabta si ay uga faa'iideystaan muuqaalada caafimaadka ama ku saabsan cunista caafimaadka aan idin la wadaago. Haddii aad nagu cusubtaan subscribe-ka nagu caawi si ay kusoo gaaraan mar walba muuqaalada aan soo gudbino. maanta waxaan halkaan aan jeclaystay inaan idin wadaago xanuun ku badan bulshadeena Soomaaliyeed ay macquul tahay in 5 qof qaba laga helo. xanuunkaasi waxaa loo yaqaanaa asma ama waa neefta ama xiiqda. neef ama asma waa cudur ay marinada hawada ee kala sanbabadu ay ciriiri noqdaan ayna soo saaraan xab. marka tan dhacdo waxaa adkaanaysa inuu qofku qaato neefta. waxyaabaha dhici kara neefta ama inuu qofku qabato ama neefta ku adkaato waxaa jira waxyaabo qofka hadii uu sameeyo macquul tahay inuu ku kiciyo neefta ama neeftii ay qabato oo si fiican u neefsan waayo. hadaba waxaa jira dad xajiinta ku qaba neef ku qaba jira ama ay neeftu qabato markii waxyaabaha xajiin oo kale ay la kulmaan. hargabka qaar daawooyinka habaaska ama boodhka badan, catarada qaar, barafuunada, qiiqa fara badan, waxyaabaha kiimikooyinka ah, jirdhiska iyo niyad kaca ama niyad jabka qofku markuu jirka dhisanayo ama niyad jabka qofku markuu xaalad diiqad ku jiro ama depression camal oo kale iyo waxyaabaha kiimikooyinka. dhammaan waxyaabahaasi waa waxyaabaha ay tahay macquul in ay ku kiciyaan asma ama xiiqda. haddaba calaamadaha maxay yihiin? neefsasho ziyaado ah ama dhibaato neefsashada ka timaada qofka in neefsashadiisa ziyaado noqoto ama qofka inuu neeftii ku dhib ku noqoto. xiiq ama neefsasho cod leh qofka inuu isku daro si cod leh inuu u neefsado. qofka inuu dhaho kale qofkii hadda ma dhihi karo laakiin qofkii markaasi xaaladda ku jiro kale wuxuu soo saarayaa neefsashadii oo cod leh oo markaasi qof walba uu arki karo qofkan in neefti hayso ama neefti sidii la rabay dabiiciga ahayd aysan uga soo bixin. qufuucid laga yaabo in ay kasii darnaato habeenkii ama aroortii. qufac qalalan oo aan xaaki iyo candhuuf waxba lahayn laakiin si joogto ah oo daran oo qofku si joogto ah u qabanaysa gaar ahaan habeenkii iyo aroortii hore. feedhaha oo giigsanaada lagana dareemo wadna garaac zaa'id ah. cunada cuncun qofka in cunaha ama maaragtay ay cuncunto oo markasta uu dareemo in maaragtay xaggaas cunaha ay cuncunayaan. sidoo kale daal in aad dareento fara badan, madax xanuun zaa'id oo fara badan. waxaa laga yaabaa in aad calaamado badan oo neef ama asma aad qabto haddii aad xajiin ama xasaasiyad qabto. haddii aad xajiin ama xasaasiyad qabto dadka qaar waxaa jira xasaasiyad ama xajiin ku qaba. dadka qaar waxbay ku qabaan xasaasiyadda dadku isku mid maahan. qofba waxba xajiinta ku qaba. dadka qaar baa jira xajiintaasi waxyaabo kala duwan ay ku kiciyaan. haddii aad leedahay qof qoyska ka tirsan oo neef qabo waxaa macquul ah in adiga neeftaasi ay kugu dhici karto ama aad u nugushahay. haddii ay jiraan wasakhowga hawada ama hawada ay wasakhaysan tahay waxaa loo yaqaan air pollution iyadana aad qabtid xanuunka neefta ama asmada waxaa macquul ah inay wasakhowgaas hawada ay kugu kiciso. in aad la kulantid qiiq meel qiiq ka shidan yahay oo kale iyadana way kugu kicin kartaa asmada. in aad diiqa qabto ama inaad diiqad ama qofka inuu stress waxa la yaqaan ama depression uu la kulmo ama uu ku jiro xaaladda noocaas oo kale qofka way ku kicin kartaa asmada. haddaba si aad uga hortagto neef in ay ku qabato maadaama xanuunkii aad qabtid marka waa inaad iska yareysaa waxyaabaha kugu kicinaya xanuunka. waa inaad mar walba aad wadataa dawada neefta meel walba aad joogtid ama mar walba aad guriga ka baxaysid ama guriga aad joogtid waa inaad markasta ay ka agdhowdahay. qaado daawooyin kuu qorshaysnaa haddii ay jiraan xataa haddii ay calaamadaha kaa tagaan waa inaad daawada aawadid. sidoo kale ka fogow cabidda sigaarka, shiishada ama waxyaabaha qiiqaya. markastana isku day in aad la xiriirtid dhakhtarka kuugu dhow meesha aad joogtid si markasta xaaladaada ula socotid.